midaas xalina loo helay muu malay dadkina wada bani aadamkana qataa waa mar walba khaladaad dhac karo owners uu noqdo manager uu noqdo shaqaale caadi uu noqdo customer ka xataa ka noqdo qof walba sabab shakhsi ah jiro ama wax oo ka keenay shaqaas ka tago ama ina xad gudub qofku xad gudub manager uu noqdo ama owner uu noqdo ama qof kale shaqaale oo isbsadeen hada caqabadooyinkan ودك بدن وحواي قفكي وحا ولا ما لقري وحاله بري اعتمادنا wax ku barto qarasho company ka baxay ama dadka meesha leh ay ka baxday way hantadii meesha ka tahay oo meel kan la ku dhunto qofka waqti ala gari طبعا خف oo ogal ma jiro meel oo ku dadaali ama wax ku sameey ama qof uu maal gari inuu iska bax ila waxa jiro sabab adaga jiro ama waxa jiro sabab qofkaas oo shaqada uu tagay ama sabab ownerka ama managerka shaqada qofkaas uu weeray midaasitna mar walba saan jeclay dhan way ka fiican tahay dhanna way ka xun tahay experience kan meesha ku dhex wareegay waxa laga yaabaa qof oo maqaayadiiba awoodeen inuu qofkan wax bar ama kharaj geli waxa uu maana qof oo 2 sano ama 3 sano la kharaj gelinayo aqoon si fiican soo qaatay oo dadkana ugu deeqay kaasna supplier-kana way fiican tahay owner-kana way fiican tahay dadka meesha customer-kana way fiican tahay waxay helayaan wixii standard-kii ama quality oo lagu soo daalay ama marka aan aragtay aasaan u arkaa sida koodiya uu sheegay waxa uu muhiimsan meesha xarun walba la furay ama ganacsi walba meesha laga furay noqdo dhanka maqaayadaha noqdo ama ganacsi walba uu noqdo dadka uu muhiimsan dadkina waa hanti oo wax u baahan analysis badan ay wax u baahan dadkina inay isfahmaan oo la faham karo qofka caqabooyinka shaqada uu tag karo qofka see aad koodi marka shaqada uu qaadanaysa meesha uu xiraysan aasho meesha uu kulahalay waxyaabo badan jiro marka waxa caqabado wax u jeedo mo ina xal leedahay mar walba ina manage garaysto qaabka dadka ku alaalsaneed qaabka oo rasibiya waxa uu ku alaalsaneed halka taasay noqon kartaa